السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرتا ميلو بوضافة دنيا كجوكتان سود واد إذن وفاد قبيلة ديد أضيقي مسكين كها بعد سلامة كاميرا يرتو سيو dad badan waxay rajeynayaan macnaha kadiskii ay rajeynayaan laakiin kadiskii arrin yar baa ka soo horumartay oo wacyigelina insha Allah kadiska diyaarinayaan ku wadaa bidna kadim waana geli doonaa waan soo deyn doonaa waan isla daawan doonaa haddii Ilaahay idmo meel walba joogtaan ii soo dhawaada sii share gareeya barnaamijka inta saad ka codsanaya in fuaad wax kale idinka codsanayo muhiimadu waxay tahay inaad share gareysid walaalkay daawanaya caawiyanu ka hadlaynaa oo miiska noo saaran horta ma jeclay dadka inaan karbaasho ama dadka inaan dhibo ama aan kurbeeyo badan waxaan jeclahay in aan ka hadlo qadiyadda guud ee Soomaalinimada iyo qof walba Soomaaliya sidoo xor qabyaalada uga noqon lahaa ana fahansiiyo qabiilka iyo qabyaalada kala duwanaanshahooda kaliya marka waxaan jeclahay inaan ka hadlo ninkan odayga ah quruxda badan ee jeclahay shaashada idinka muuqda ninkaas odayga ayaan jeclahay caawa bal in yar inaan maxaan ku idhaahdaa aan ku yaro fogaado ninka odayga waa garanaysaan saan jeclahay waa la yaqaanaa hebelka laandheera oo dhahaa kulley xamar buu joogaa waana ninaad garanaysaan oo si fiican aad u taqaanaan ninkan wuxuu caan ku noqday baraha bulshada waxa la yiraahdo cay iyo aflagaado maruu qabiil caayo maruu shakhsi caayo maruu madaxda qaranka caayo dadku waxay u qaataan wax fudud أنا قف إنه قف كلا عاية عايد قبيل كأنيجا واحد معناه ما يسمونه سو هدي إمك هداد عايد قبيل كعاي وحب ما يسوق كردنا سو إنك إحنا قلا جميع لكن نكن سببته أوقف سنايو يعني وجحد لايو ما هي تاعي نكن وحيد تاعي سيدا صور كان إمك إدين مقندونة وحهوري ما حنقول هذا وحريه دريس كعيدا كسومالي أيو حريه هاي maadaama dariska ciidanka Soomaaliya uu xiran yahay sida la ii sheegay waxa la yiraahdo askari waxa horyaal oo qori ah ka kii qaranka lagu difaacay marka waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan hubiyo horta ninka askari ma yahay oo run ma tahay ninkan askari ma yahay oo run ma tahay hadduu askari yahay dowladda Soomaaliya waa ku ceebeysan tahay ninka uu taliyaha u ah wuu ku ceebeysan yahay taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa waa ku ceebeysan yahay sababtoo anagu waxaan nahay shacabka ayaan nahay dowladuna waxay ka timid shacabka waxay dowladdu u tahay shacabka dowladda waxaan nahay shakhsiyaadka aadka macnaha loo yiraahdo way taageeraan waliba si indhala'aana laakiin si indhala'aana dowladdu uma taageero dowladdeedu waa jeclahay markii dowladdu ay wax ka khaldanto waxaan jeclahay sida aan u ammaano dowladda markii wax ay qabato inaan ugu dhaliilo markii ay wax khaldan yihiin shakhsigan oo kale oo xalayto dabcan wuxuu lahaa oo dambiya oo xitaa maxkamadda hadii la soo saaro xabsi uu ku mutaysanaya ciqaab uu ku mutaysanaya muuqaalkaas inaan helo waa suurtagal badan inaan hayo aan eego inaa haya macquul aan soo dejiyay muuqaal uu leeyahay alla galo waa amarkayga daynila alla aado busteed alla soo kiciyo muuqaal uu leeyahay jiray inaan soo dejiyaan jeclahay haddaan waayana waan waayay dhib malaha muuqaalka raadinaya marka ma hayo muuqaalkii waa waayay marka ninkan wuxuu yidhi xalayto alla buxo alla tago daynile busteeda la soo kiciyo mursadaha jooga alla laay wallahi dad badan oo idin kamid inay daawadeen rajeenayo dadka mursadaha oo jooga meeshaas degan huf laga soo dhigo dhahay baabaha laga soo dhigo ninka dhahaya waaye ninka odayga idinka hor muuqda har iyo habeen TikTok iyo Facebook wax kale kama sheego farmaajo waa ku soo socda waa ku dilaa xasan cali khayre maqaara gadaa ra'iisul wasaaraha nimitihid bamba wata kan wataa oo 4 ilaa 9 saac ka hadla warinka idin muuqda ninkan imika idin muuqda marka walaalayaal ma waxa la joogaa xilligii macnaha aan ku shactireysan lahayn qof ku booteenaya oo macnaha leh waxba aan dilayaa
haddana ciidankii qaranka wata dharkoodii wata ma xilligaa ku shactiraysan lahaynba oo majaajilo ka dhigan lahaynba mise waa xilligii aan ribood gareen lahayn dacweyn lahayn dowladda u sheegi lahayn golaha baarlamaanka u sheegi lahayn qof walba u yahay easy simple laakiin haddaa macnaha shactire ka dhigatid oo easy u qaadatid qof ammaankii khalqal gelinayo ummadda wax yar oo fudud u qaadatid macnaha dhibkeeda leedahay waa ceeb inteeda leeg ya marka ninkan hadduu waalan yahay dhakhtarka dhimarka xabeebaa loo geenaa waa la daweynaa annaga daaweysanayno walaalihiisa soomaali oo kastaa loo ururinaa weliba waa la caylinaa toore qurux badan waaye laakiin hadduu kibir ka keenayo horta dharka ciidanka in laga bixiyo waaye kadibna maxkamad la soo taago kadibna la xukumo xabsiga loo diro lindanaal ma laga cadbo xabsiga macnaha dhexe magaalada muqdisho waxaa laga cadbaa limbabelo limbabeladiisu xagga iskaga cabayaa waa nasanayaa duqa waa ay kasteen soo maha marka askariga wanaagsan ee loo baahan yahay waa kee hajeclaan lahaa muuqaalka inay la daawataan askariga wanaagsan waa kuma muuqaalka ay la daawada darmo qarannimo iyo isku duubni si ay isaga difaacaan cadowga arxanka daran marraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fain lam yastati' bilisaanihi fain lam yastati' biqalbihi wadaalika ad'afu liimaan munkarka ay haayaan iyo been abuurashada diinta islaamka annaga ayaa gacanteeda la tegayno culimmadiina waxaan ka rabnaa xaqana cabeedin shacabka soomaaliyeed oo caamadana waxaa laga rabaa qalbigeena ka dhacaan ciidamada u kaalmeena duciyaan waa jaamici ka qalin jebiyey mid ka mid ah jaamacadaha dalka ku yaala ciidanka xoogga dalka inuu ku biiro ayuu go'aansaday kadib dhacdadii murugada badneed ee Soobe oo argagixisada ay ku xasuuqeen dad shacab ah taasi oo xanuunkeeda uu ka seexan waayey jaamacad ayaan ka soo baxay kulliyadda tarbiya islaamiya xirow ayaan ahay anoo xirow ah oo jaamacadda ii dhammaatay oo isla master degree diyaari ayaa qaraxii foosha xumaay ee Soobe ex-control Soobe ayaa dhacay baaqi madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan aqbalnay dadkii ugu horreeyay oo aqbala ayaan ahayn darteed ayaan ugu kaliftay inaan ku soo biirno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inta Soomaaliya meel ka mid ah ay ku sugan yihiin argagixisada ayuu laba xarig leh abuukar sheegay inuu dagaalamayo oo uu xureynayo dalka isla markaana uusan ka hari doonin nabadiidka meel kasta ay galaan dagaalka al-shabaab lagu jiro waxaan ka qaadanaynaa marka walaalayaal askariga dhabta ee nadiifta ee loo baahan yahay waa askariga imika aynu wada daawan askariga aynu imika wada daawanay maxaa ku kalifay inuu ciidanku ku biiro waxaa ku kalifay kadib dhacdadii foosha xumeed ee 14 Oktoobar dhacday ee shacab Soomaaliyeed oo badan lagu xasuuqay iyo wiilka dhalinyarada go'aansaday inuu ciidanka ku biiro waa jaamici masha Allah waa sheekh diinta yaqaana dadku soo wacdinaya aragnay askariga xalaasha ah waa kaas oo kale ayaa loo baahan yahay inaan dhiirigelino inaan online intaan u setup gareeno macnaha aynu halka dooro labada dooro saddex dooro afarka tobanka boqolka kunka wada loogu rido guri loo dhiso ya guri loo dhiso aynu ka farxino oo askarteena aynu macnaha garab istaagno laakiin axadkan oo kale inaan wadno oo niraahno macnaha waa saan iyo waa kan iyo waa kii kale iyo hebelkaa baa la yiraahdaa iyo wixiise in la sheer gareeyo macnaha wax qurux badanba ma aha marka dadka muqdisho jooga ee asxaabta Facebook igula ayaan la hadlayaa war ninkan waliba kuwa ciidanka ayaan la hadlayaa waxaan waliba la hadlayaa ninka la yiraahdo Cabdicasiis Africa ayaan la hadlayaa waxyaabaha qaarkood inaan fiirsano lama rabo waxyaabaha amniga khalkhal gelinaya lama rabo inaynu macnaha niraahno kan oo kale alla buunbuuniyo hala wadwado ma haboona fadlan dowladda Soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa gaar ahaan cidda ay qoseyso gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu horeeyo ya taliyaha ciidanka xoogga dalka ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa axadkan caadaystay sheeganaya inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu kamid yahay dareeskoodii labisan in ay ummadda ka qabtaan taasaan codsanaynaa cod dheer aan ku dhahaynaa weliba haddaa idinka bilaabi weydeen anaa idin bilaabay ma fahanteen laakiin haddii noqoto bahashu aan iska aamusno waxay noqonaysaa in kuwa fidnada hurinaya inaynu fursad siino marka dhinaca commentiyadiinaan eego siina shargareeya barnaamijka
ayaan cabdullaahi waxay leedahay waa in dowladda loo sheego waayo ninkan wuxuu soo wadaa ka weyn cayda gabadhaas gabar aqli badan maasha allah ayaan aad iyo aad umahadsan tahay ayaan waxay tiri waa in dowladda loo sheego ninkan wuxuu soo wado ayaa ka weyn cayda sababtoo soomaaliya maxay ku mahmahdaa waxa jooga qofkaan garan waxa soo socda ma garto maxaa kaloo ku mahmahdaa soomaalidu waxaan day waxaas day waxa ka sokeeyana day hadduu maanta ku booteynaya daynila alla tago oo macnaha mursadaha la soo laayo macnaha wuxuu ku fikirayaa daynila mursado keliya degan soomaaliya qof walba oo soomaali ah gobolka banaadir waa degan yahay soomaaliya meel walba waa ka degan yahay laakiin maxaa ka buuxdo qabyaalad walaa ninkan waa qurux badan yahay saaid u qurux badan yahay ragga quruxda lagu tiriya waa laakiin foolxumada imka idinka muuqata wax kale maaha waa qabyaalada ya nin waxaa waaye maanta haddii kharash la geliyo wax badan ma u baahana xitaa asaga dhan $1,000 ku filan si fiican haddii loogu labiso macnaha hal lax loo qalo dhac waxaa waaye 3 bilood kadib insaanka lagu ekaanaya qabyaaladan uu iska daayo laakiin hadda waxa foosha xumeynaya qabyaalada waaye sababta ayada fool xun qabyaalada waa gartay aan siino qof kale fursad gobaad waxay leedahay wiilkan sidaan ku helaa wiilkii gobaad ka hadlayso dabcan waxaa waaye waa wiilka askariga ahaa maasha allah oo ah nin dhalinyaro oo aad iyo aad u qiimo badan gobaadee ninkaas odagayna waa inaan raadino shacabka soomaaliya isku duubto la abaal mariyo waa mahadsantahay iyaa kale yaa kale waa la hela sharmaaki soo qabo le sharmaaki walaalo meelan kaa soo qabta ma aqaanada dhibka naga daa waan dhowgacli kommentiyadeenaan eego rashka yara wuxuu leeyahay adi maxaa kaa galay nin guri ku xiranayaaba tahay rashka aniga guri kuma xirnay alxamdulilah waa soo shaqaystay waa soo shaqaystay guriga in lagu xirnaadana waa in cudurka laga badbaado alxamdulilah ilaah kulligan naga badbaadiyo laakiin anoo london jooga oo ingiriiska jooga oo waddan nabada jooga oo soo shaqaystay oo online wax ku baranayo maadaama waxbarashadii naga xiran tahay ya waxba iga maqneen amni haysta nabad haysta nolol haysta shaqo haysta ya baasboora ku safra haysta waxba iga maqneen oo dhihi karo soomaaliya waa iloobiya soomaaliya maxaa iga quseeya haddana maxaa ikicinaya waxaa ikicinaya walaal halkaa ka imid ayaan ogahay meesha shaqo la-aanta ka jirtay cadaalad darrada ka jirtay gabdhaha yararka lagu kufsanayo saqiiro yaryar ya gabar weyn la garayba kufsiga inkastuu xun yahay ninka waa damca waaba la dhihi karaaba hadhowta qoorta laga gooyo laakiin ilmo yaroo saqiira 2 sano 3 sano jiro lagu kufsanayo afgooyay ka dhacday ya oo nin soomaaliya uu kufsanayo ya haddii maanta cadaalad ii jiri lahayd macnaha lagama xaaltameen xabad laguma dhufteen waa la daldali lahaa ya taan u doodayo oo hadda aan ka doodayo ninkan hortiina ka muuqda ya ninkan hortiina ka muuqda walaa inaan dambaabo ma rabo ninkan hortiina ka muuqda aan leeyahay ha laga qabto ummadda ninka hadda ku booteynaya daynil ala tago macnaha ummadda ala soo dhameeyo anaa dilayo asagoo dariska ciidanka xiran maalin walba farmaajo doqonaa tahay dhaandhaanaa tahay xasan cali khayr roores wasaarihi ummadda soomaaliyeed caynaya qof uu dhaafayo uusan jirin maxaa diidayo ninkii xashiishka horteena intuu soo galo layf ku cabaayo inuu gabar soomaaliyeed oo qaali ah oo qiimo leh oo sharaf leh inuu kufsado maxaa diidayo oo 5 xabadood weliba ku dhufta haddana ya uu yidhaahda meydkeeda ma la qaadayo u dhaho maxaa kalifayo maxaa diidayo wax diidayo male yes annagaa fiirsanayna maanta annagaa sheergaraynayna annagaa saan dhehayna ma fahamta annagaa sheergaraynayna laakiin annaga haddaan dhihi lahayn maya waxaan waa wax xun aan dhihi lahayn muxuu ku faanayaa weliba inuu askari ciidanka soomaaliya ka tirsan uu yahay sida idiin muuqata teesarayga waa kaas uu leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan uu leeyahay ya waxa idiin muuqda waa teesarihiisi muxuu leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsana marka haddaan ka hadlin oo qof uga aamuso macnaha ninkan aniga waxaa waaye hawiyu ileeyahay ma ka hadlaayo gobolka banaadir asagaa iskale ma ka hadlaayo berita markii walaasha uu kufsado maxaa samaynaysaa waaye asagoo hawiye kula markuu berita walaasha kufsado maxaad ku hadlaysaa maxaad leedahay ilaa waa ninkaas diin xirin ee caytamaya wuxuu arka ku hadlaya askari inuu noqdo sama u qalmaa
si askarigu waa kee askariga u baahana ya walaalayaal waxaa la rabaa runtaa la rabaa ninkan hadduu hawiye yahay anigaa hawiye la'ah macnaha kuwa qabyaaladda macnaha oo maskaxda ka gashay idiin sheegaya ninkan hadduu hawiye yahay horteeda soo fadhiya anaa hawiye la'ah raallina kama ihi in qabiil soomaaliyeed uu wax ka sheego raalli kama ihi oo uma qalmo dareeska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sharafta leh ee dhiigooda inoo hura ee iyaga dhiigooda aynu ku seexanno ee dalka maanta xoreynaya in dareeskooda uu xirto uu ku soo caytamo asagoo dareeska ciidanka xiran ee qaranka lagu difaacayay oo calankii soomaaliya halkan ugu xiran yahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaa raalli ka noqonaysa qofkii raalli ku noqdana wallaahi qof damiir laynu saxeen iyo bilaahi tallaahi soo fahantima fariinta annaga saan u gudbinay ku xiran tahay way gaaraysaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliyayaasha way gaaraysaa soo fahantima taariikhdana meel maanta caawa ku qora taariikhda meel ku qora wallaahi oo bilaahi oo tallaahi weegaga soo socda ma arkaysaan social media kuma arkaysaan ya xabsiguu liinta ku dhexaabaya weegaga soo socda maxaa idin ma ku arkaysaan social media xabsiguu liinta ku cabaya ma fahanta laakiin haddaan aamusno gabdhaha soomaaliyeed ayuu waddada ku kufsanaya haddii aynu aamusno gabdhaha soomaaliyeed ayuu waddada ku kufsanaya wiilasha soomaaliyeed iyo mobeelada jidka kaga qaadanaya maalin walba intuu life soo galo ree hebel intuu caayo ayaa communitiga dad masaakiina oo qabyaaladu madax martay oo qoorta isu gelinaya ma fahanta haddaba si isa taas u dhicin walaal ka hortag muuqaalkan taliyaha ciidanka ee taqaanid gobolka banaadir ku sheergare xildhibaanka taqaanid ku sheergare tolkiisa daa taqaanid hooyadiisa aabihiis odayaashan yiraahda qabiilkaanu madax u nahay wiilkiina waa la naga qabsada dhax ya haddaa qabiilkiisa taqaanid hoos igu soo qor aniga kulle hawiye waayaa la hawiye ciduu ka yahay ma aqaani ma fahanta marka looma joojinayo commentiga markaan fiiriyo asxaabta commentigiina akhrinaya waa kanaya commentigiina akhriya marka intee ka bilaaba huda cabdi waxay leedahay dadka ku haya waa laandheere qof kasta waa laandheere maalin kasta wuxuu dhahaa dadkan qarxinayaa raalli miyaad ka tihin taas hudda su-aashaas idin weydiisay ninkan wuxuu yidhi laandheera ahaye maalin walba wuxuu leeyahay dad aan qarxinayaa dad aan dilayaa qaraxa dhibka uu leeyahay waa ognahay ma raalliyaa ka nahay hadduu qof walba ku faantamo waxbaan dilayaa waxbaan qarxinayaa oo macnaha dastuur qabanaya qodob ciqaabeed qabanaya yuusan jirin qabiilu ku faantamo in laandheera ahay gobolka banaadir iska leeyahay waa qarxinayaa dadkaan dilayaa haddaa maalin walba dhageysano aan aqbalno soo dilkii walaalayaal dalkeena meeshaan keenay dulmiga cadaalad darrada ah walaalayaalo soo caadi ma noqonayo hadduu dilka caadi noqdo soo tahriibka iyo qaxa kuma jireen hadduu dilka iyo qaraxa caadi noqdo ninkaan ka aqbalno ka ogolaano ya soo caawa soomaaliya gudaheeda shaqo la'aan kuma tihid soo baasaboor la'aan kuma tihid soo daryeel caafimaad la'aan kuguma haysato ya soo nin bal ka waran nin dhallinyaraa oo 25 jira oo soo kacay oo subaxii meeluu shaqo u aada aqoonin waxna bartay daryeel caafimaad aan haysanin ya kenya oo daris iyo etoobiya oo daris baasaboor ku taga aan haysanin ilaaha idinku dhaarshaye ninkan wuxuu ka talinayaa waa inaan ku jirno 100 sano oo taas ah laakiin maanta haddaan nidhaahno walaalayaal aynu iska qabanno kan iyo kuwa la midka ah kaligiis maaya kan iyo kuwa la midka aynu iska qaban haddaynu nidhaahno oo ciidankeena soomaaliyeed dirooskooda sharaf uu leeyahay ilaahan kugu dhaarshay fiiri london aan ku raaxaysanaya ya london aan ku raaxaysanaya waa soo shaqaystay ya funaanada iminka orodka kaga imid aan weli xiranahay ya intaa casheeyey oo dibra dhacsadaa orod aaday wax iga maqan nolosha ma laha laakiin wiil soomaaliyeed ayaa iminka dhufays ku jira oo cadow la dagaalamaya awooda inuu soo tahriibo oo ingiriiska la joogo awooda inuu maraykanka aado awooda caawa inuu laadhu online ku ciyaaro inuu facebook macnaha dad inuu ka caayo ama tiktok ya
inta ka shidanta snapchat inuu ka dhaco ayaa wuxuu doortay inuu dhiiggiisa annaga noo daadiyo oo xabadka shafka xabad uga dhacdo uu doortay dareeskaas wiilka xirta iyo caawa axadkan wejigiisa idiin muuqdo ya saan qabyaaladu u fal xumaysay ilaaha idinku dharshay in isku dhar inay xirtaan oo dharka ciidanka xirto oo ciidan Soomaaliyeed oo ahay uu yiraahdo uu ku faantama asagoo ay dhiig ku faantamayo waa kaase mana qabata waxa u dul qaadan karna ma tahay ma jecli dad inaan ku dhigo laakiin sababta iga hadlanaysa waxay tahay wallahi baa raali ka noqonin oo billahi baa raali ka noqonin oo tallahi baa raali ka noqonin in ciidanka Soomaaliyeed dareeskooda qashin uu ku xadgudbo wallahi inaan raali ka noqonin cidii raali ku aan wallahi inaan ka yeelani billahi tallahi way fahanteen Soomaa marka anigu marnaba ma aqbalay wallahi baan aqbaleen iyo billahi tallahi baan aqbaleen marka walaalayaal mid aan sameynayna waxay tahay kuwa dulminaya ummadda kuwa doonaya inay magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku ciyaaraan waa waajib aniga iyo adiga muwaadin ahaan nasaara haddii aan inagu iska bilowno markaan aragno kan wax qarxinaya markaan aragno kan wax dilaya oo ordaya sawirka ka qaadid markaan aragtay askari mobile qofka dhacaya si tartiib ah u doobtid madaxdiisa u dirtid musuqmaasuqa iyo dulmiga oo dhan asaga soo jaray marka aragtid mid social media dadka macnaha ugu booteynaya qabiil dadka madaxa isku gelinaya runtiina u sheegtid inaad dhahdo anigu ree hebel baahay ree hebel funaanada xirnahay mobilkan haysto nolosheeda ima siinin qabiilkan ahay waan ahay yes waan ahay ya qabiilka ay ugu tumaysay yes waan ahay laakiin qabiilku macnay ima laha ku qabyaaladeen maayo qof kaga ma sareeyo soo faantay ma intaas markaa tiraahdid wuu isku yaxyaxaya hadda waxaa macquula wiilkan inay caawa dadku difaacaan ree hebel baa ahay yes kan ku difaacaya waxaa leeyahay wiilkan hadduu hawiye ana hawiye la raalina kama ihi inuu qabiil Soomaaliyeed ku xadgudbo hadduu damiir u leeyahay xataa fiiriyaa wax yar idin sheega wax yar halkaan fiiriyaa haddii macnaha dad baa macnaha hawiyenimo ku difaacaya arko wiilkan nin hawiye laandheera leh ninka uu ku dhagan yahay oo caynaya har iyo habeen uu dhahayo maqaar buu ka taajiray maqaar buu iibiyaa maqaar baasaan uu leeyahay soo nin asaga hawiye la umrursada ama ya walaaliya soo maaha soo nin asaga hawiye la umrursada ama ninku caynaya muxuu ku caynaya wuxuu ku caynaya maxay tahay wuxuu ku caynaya waxay tahay qabyaalad kabaha la xirta maqaar in laga sameeyo ma oga suunka maqaar in laga sameeyo ma oga soo fatima laakiin maqaar inuu qof ku hayo kaliya raba marka looma joojinayo kuwa qabyaaladistayaasha looma joojinayo oo qaarkood hadda waalka wax kusoo qorqorayaan wax macna ay sameynaysa maaha marka doqonkan idiin muuqda waxaa waaye runtaa loo sheegaya muuqaalkan sheergare dacwee biidni illahi alkariimna asbuucyada soo socda waa arki doontaan ummad waa laga dhex siibayaa xabsiguna liimbiladiisu ka cabaya maadaama liindanana laga cabay dadku laakiin inta aniga ay dhibayso waxay tahay dadka soo qoraayo kommentiyada qaarkood waa wax yaqyaqsiya yaqyaqsigaas waxaa ka mid ah oo soo qoray ninka wata waa Cabdirashiid Cali Gomar ma qarinayo muxuu soo qoray Cabdirashiid Cali Gomar wuxuu soo qoray laakiin ninkan isagaaba wuxuu yiri mid taqaana ninkan asagaaba shabaabka naga celiya haddii jasiiro haddii laakiin ninkan asagaaba shabaabka naga celiya haddii la xiro jasiiro in la ganaaxo in laga qaxa miyaa rabtaa fiiri damiirkaas amal fiiri damiirkaas qofkaas uu ku hadlayo nin uu u jeedo inuu mooryaannimo ku dhaqmaayo inuu leeyahay wax baan qarxinayaa wuxuu ku leeyahay haddii ninkana laga xiro jasiiro shabaabaa soo galaya subxaan allah waan gartay
waa ka xumaa cabdullaahi wadin asagana muxuu leeyahay ninkan waa dalxiisiye waana shaqaystaa faraha ka qaad inuu shaqaysto inuu ummadda dhacmiya marka waxaa jiro dad macnaha hadda commentiyada qaarkood dadku waxay qorayaan waa iska qaab darro marka anigu uma joojinayo dadka qaarkood muhiimadda ani waxay goolkayga I know what I want and I know waxa saxsan iyo waxa khaldan so macnaha ima sameynayso qof khaldan aragtidiisa macnaha ima sameynayso wixii saxsan Allah subxaanahu wa tacaala adiga ku abuurtay ayaa og adiguna waa og tahay maanta ninkan falku uu ku jiro in haddii aad taageertid oo aad ku rabtid macnaha inuu ummadda maalin walba qarax ugu booteeyo aad ku taageersan tahay dee asagaa lamid tahay maadaama asaga lamid tahayna fikirkan asaga ka qabo baan kaa qabaa in ummadda lagaa qabto xabsi lagu geeyo mujidaan simple saasay igu fududahay aniga ya saasay igu fududahay wayna imaan doontaa soomaaliya qurux badan biidni illah alkariim kelmadaada ka oran karin macnaha dad baan qarxinayaa iyo dad baan dilayaa iyo dad baan saas samaynayaa iyo aada oran karin way iman doontaa soomaaliya waxay imaan doonto aada qabiil ku faani karin ree hebel baa anigu ka dhashay dadka kale waa ka fiicanna waa ka laandheerasannahay way soo socotaa insha allah biidni illah alkariim wayna imaanaysaa waxayna ku xiran tahay jiilka maanta jooga siday isu garabsadaan soomaaliyada quruxda badan loo gaaro sababtoo ah Rwanda 1994 la isma lahayn 2020 Rwandada ay tahay ay noqon doontaa cidna aqligeedu kuma jiro ya Soomaaliya shalayto waxaan xusuustaa that was about 1996 mise 1996 meelahaas ahayd madaxtooyada maanta caawa oo madaxweyne farmaajo dhex fadhiya quruxda badan waraf ciyaal warafaa waadi jirnay warafaa lagu ciyaari jiray dad caawa iga markhaati kacaya lifekeygina daawanahayn macquul waay life macnaha waraf weeraa loo aadi jiro weero loo aadi jiro madaxtooyada markhaati leedahay central bankiga intaan tagnaa waxaan soo qodan jirnay wuu dumay shilimadii intaan kasoo guranaa aan ku ciyaari jirnay marka dad badan oo iga markhaati kacayan taasna way jiraan central bank caawa wuu noo dhisan yahay lacagteena asagay ku dhacdaa madaxtooyadii quruxda badneed waa lasii qurxiyey waa lasii dhisay laakiin dad baysan la ahayn macquul 95kii 96kii madaxtooyadan ayaa dib usoo noqon doonta ma jiro soomaaliyana maanta meel qurux badan ayay maraysaa biidni illah alkariim meeshii maanta taagantahay kasii qurux badan ayayna gaari doontaa laakiin waxay ku gaari kartaa adiga oo ka tanaasula qabyaaladda adiga oo xumaanta aana taageerin adiga oo wanaagga taageera adiga oo yiraahda kan iyo kan la midka ah hadduu yahay walaalkay hadduu yahay adeerkay haddii habaritay dhashay eedidee dhashay waa in ummadda laga qabtaa taas ayay Soomaaliya ku toosaysaa laakiin ninka maanta xashiishka istaaga ka cabaayo qacqac haddii noqoto gabar qurux badan oo Soomaaliyeed oo jidka ku kufsanaya marka raalli kama intii taas dhici lahayd waxaan qabaa in ummadda muuqiisa laga qariyo hadduu waalan yahay la daweeyo hadduu caafimaad qabo kibirsan yahayna ciqaabteedu uu maro waa intaas walaalaya marka qaray waa mahadsantihiin barnaamijkan inaan kusii dheeraado ma rabo waa saaxiibkeen Fuad Qabyaaladiid meel walba oo joogtaan waa mahadsantihiin hadduu ay buuda idmana mar dhow waxaa idinku soo socda waa kadiskeena Qabyaaladiid cidda marinta bixin lahayd idinkaan leedinka rabaa aniga waa bixiyey kolley 2 asbuuca oo marayna isku xigta caawa idinkaan leedinka rabaa haddii qofkii 10 bixinaya ama 20 qofkii bixinaya caawa ama dhahaya 25 saare qofkii guuleysta lacagtaas u diraya meel walba dunida ka jooga haddaa bixinaysid $10 ama haddaa bixinaysid waxaan dhihi lahaa 20 ama 10 qof bixinaya qurbo jooga ama hadduu qaranka joogo idinkaan leedinka rabaa laakiin aniga kadisku waa soo sameynaya waa soo diyaarinaya 10 su'aalood laakiin intaana live-ka soo gelinin waxaan jeclaan lahaa hal qof oo ila soo xiriira oo yiraahda caawa kadiska abaalmarintiisa Fuaadow anaa bixinaya saa isu dhiirigelino sababtoo dhalinyarada waxaan ka dhiirigelinayna waxay tahay qabyaaladda inaynu ka mashquulino oo aynu ku mashquulno wanaagga muhiimaddu waa intaas sababtoo anigaa doortay imika inaan wax wanaagsan jaawo si wanaagsan imika wax wanaagsan ugu sheegayo waan awooday inaan wax xun aan sheego oo qabyaalad ka sheekeeyo qabiil ka sheekeeyo gabaracaayo saandho horree hebel ammaano waan awooday laakiin waxaan ogahay taas inuu waqti iga lumayo
taas inay aakhiradeeda xumeynayso waxaan ogahay taas inaysan waxba ii tareenin soo fahanteen ma marka waxaan jeclahay inaan idinku soo gabagabeeyo sheeko yaroo London ka dhacday waxaa jirtay waddankan markaa ku yara aan imid 2005kii waxaa jirtay meel aan ka shaqayn jiray maqaayada u dhaway dhinaca Leyton la dhahaa maqaayadaas waxaa jiray nin Soomaaliya oo aad qabyaalada uga sheekeyn jiray said markaan taga waxaan tagaa asagoo qabyaalada reer hebel buufinaya saan dhaho kan dhaho mar walba waa dhex fadhiyaa meesha iminka coronavirus aa bilowday waa ogtihiin qurbo joogta Soomaalidana waa dad badan oo dafay ilaha u naxariisteen xalay ahayd marka mise habeen hore ahayd malena waa la soo wacay waxaa lagu yidhi ninka odayga aniyo Fuaad waa tagaa la dhahay coronavirus hala kacay waa dhintay waxaa koowaad oo igu soo dhacay markii ninkaas uu dhintaa la dhahay waxay ahayd ninkaas tolku difaaci jiray sidoo qabiilku ugu qaylin jiray sidoo macnaha ninkaas maanta oo dhan qabiil iyo Soomaali isma laha iyo Soomaali isma rabti iyo reebel ma u baahnin iyo reebel nama soo galaan uga hadli jiray waxaan dhahay ninkii inta coronavirus ku dhacay aan meedkiisa xitaa janaa'isa lagu tukanaynin aan meedkiisa xitaa intii tolka is abaabulaan aysan u tagaynin wallahi waa khasaara dhahay aakhirana wuu khasaaray adduunyadana wuu khasaaray ya marka walaal waxba kuu tari maaya qabiil adigu dadaal wax baro qofkaad doonaysid inaad noqotid adigu noqo shafatima waa noqonaysaa waana guulaysanaysaa adigu is aamin ree hebelnimo ha aaminin ya ree hebelnimo meel kuma gaaraysid haddaa laakiin adigu is aamintid waad guulaysanaysaa caawa haddii adigu jeebkaaga maran yahay imise adiga ree hebel kula ah oo taajiriina jira maxaa ka heshaa shilinkooda ku faantid muxuu kuu tarayaa waxba sooma suldaanka beesha oo ba'na qorin oo ta'na qorin oo maamad halkaas kaga saaran tahay oo lacagta tolka ku labistay haddaa caawa u tagtid oo dhahay suldaan shaqaa rabaa shaqana kuuma soo helaayo haddaa dhahay suldaan waxaa waay waddankaiga dhoofi fiisa kuuma helaayo kow wuxuu siinayaa caruurtiisa kuwa adeerka u yahay kuwa abtiga u yahay kadib wuxuu raadinayaa haddana jifada hoose marka haddaa dhalinyaro tahay oo Soomaali tahay oo qurba aa joogtid fursad qaaliya walaalka hortaalla fursad qaaliya ku hortaalla waxaad haysataa shaqo waxaad haysataa waxbarasho dadaal waxbarashadii imika traditional classkii waa laga gudbay online wax ku baran kartaa waxyaabaha aad baran kartid oo lacagta fiican aad ka samayn kartid ku heli kartid waxaa ka mid ah koorsooyinka IT-ga oo kale A+ka oo kale network oo kale CCNA oo kale adaa baratid in yaray kugu qaadanaysaa aan badnayn waadna guulaysanaysaa weliba anigu waxaan jeclahay biidnillahi alkariim inaan bilaabo deeqa waxbarasho oo dhallinyarada gudaha jooga hadduu ilaahay idmo kuwa gudaha jooga weliba gabdhaha rabaa taagirkayga waa gabdhaha inay online wax ku bartaan biidnillahi alkariim waa waxyaaba ay qorshaysan ay ka mid tahay insha allah sanadka 2021 ilaahay hadduu idmo inaan ku guulaystaan rajeynaya adiguna walaal waa awoodaa hal arday oo Soomaaliya jooga dugsi dhexe waa $10 ayaa ka bixin kartaa qalbigaa kuu qaboobaya wallahi hal arday oo Soomaaliya jooga ama agoon ha ahaada ama yuusan ahaanin ya haddaad bishii $10 u qorshaysid oo u dirtid oo kaga bixisid raxmad dar ilaahay xag allah kuu imaanayso sababta markaa wax la baxdid waxaad dareemaysaa naxariis allah subxaana wa tacaala meel aadan ka filaynin ayuu kaa siinaya marka ballanteenu waa isku duubni ballanteenu waa iskaashi ballanteenu waa qabyaalo diidnimo ballanteenu waa kuwa xumaha faafinaya inaynu meel uga soo wada jeesano